أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan kanaalka weyn Oxolo TV. waxaan maanta kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena mas'uuliyiinta ugu sareysa ee Soomaaliya ee haysta labada jinsiyood. mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wuxuu qaatay go'aan adag markii isbarbardhig la sameeyey baasaboorada Soomaaliya iyo Mareykanka. farmaajo ayaa wuxuu watay laba jinsiyood ah, mid Soomaali iyo mid Mareykan ah. markii isbarbardhig la sameeyey labada baasaboorka Mareykanka inta dal oo fiisa aan lagu tagi karo waa 115 dal. baasaboorka Mareykanka dawladda 115 dal ayaad ku aadi kartaa dabagal la'aan ama fiisa la'aan ay ku gali kartaa. halka Soomaaliya inta dal ee fiisa la'aan lagu gali karo waa 9 dal. 9 dal ayaa fiisa aan lagu gali karaa. waxaa kaloo ku saaray kaalinta uu kugu jiro baasaboorka adduunka. baasaboorka Mareykanka wuxuu kaga jiraa kaalinta afraad oo kugu jira baasaboorka adduunka, halka kaalinta uu kaga jiro baasaboorada adduunka baasaboorka Soomaaliya wuxuu kaga jiraa kaalinta 89aad. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shalay sheegay in uu si rasmi ah isaga celiyay jinsiyadiisii labaad ee Mareykanka uuna ku ekaan doono tan Soomaaliya, wuxuuna wixii hadda ka dambeeya kaliya isticmaali doono baasaboorada Soomaaliya. baasaboorka Soomaaliya isticmaalada soo madaxweynaha ka dhawaajiyay afkiisa. mar isbarbardhig lagu sameeyay baasaboorada Soomaaliya iyo kan Mareykanka waxa aad u sareeya kan Mareykanka sida uu ku xusan bogga baasaboorada. 9 dal kaliya ayaa fiisa la'aan lagu tagi karaa baasaboorka Soomaaliya, halka kan Mareykanka lagu tagi karo 115 dal adigoo aan qaadan wax dal ku gal ah. tan iyo burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya dadka Soomaaliya waxa ay u kala qaxeen daafaha adduunka, halkaas oo ay ka heleen dhalasho labaad. balse markii qaybo badan oo Soomaaliya kamid ah lagu soo dabaalay ama xasilooni waxaa batay dareenka laga qabo dadka haysta dhalashooyinka ajnabiga. taasna waxaa malaha sare u sii qaaday ku lug lahaanshiyaha beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya. tiro aad u badan oo kamid ah mas'uuliyiinta xilalka ugu sareeya ka haya dawladda Soomaaliya iyo waliba shaqaalaha rayidka ah ayaa haysta dhalashooyinka dalal shisheeye oo u badan kuwa reer galbeedka. shabakada furnaanta arrimaha dawladda wanaaga wakiil ayaa tirkoob ay sameeyeen waxa ay sheegtay in 105 xildhibaan oo kamid ah labada aqal ee baarlamaankan ay haystaan baasabooro ajaanib ah. waa 105 xildhibaan waxyeelaya badan. waxaana xusid in tirada ugu badan ee xildhibaanada ay ka yimaadaan dalka Mareykanka. laamaha kala duwan ee dawladda marka laga tago madaxtooyada iyo baarlamaanka, dhammaan laamaha kale ee dawladda dadka madaxda ka ah waxa ay intooda badan haystaan baasabooro ajaanib ah. sida laanta fulinta ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Kheyre oo ugu sareeya xukuumadda waxa uu haystaa dhalasho Norway ah, iyo kuwa xigeenkiisa Mahdi oo haysta baasaboorka Itoobiya ah. 74% wasiirada waa xildhibaano sida ay shabakada wakiil qortay. taas waxa ay ka dhigan tahay in xildhibaanadu badan oo ah kuwaas kor lagu soo sheegay baasaboorada ajaanibta haysta oo ku jira golaha wasiirada. xagga garsoorka iyo ciidamada waxaa la sheegay in mas'uuliyiinta qaar ay haystaan dhalashooyin dalal kale. intaas oo kaliya kuma eka, xitaa in badan dadka raadinaya in ay qabtaan xilka ugu sareeya ee Soomaaliya waa kuwa wata baasabooro dalal kale. sida uu qoray wargeyska 16 kamid ah musharaxiinta u
taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ee sanadkii 2017 ayaa haysta dhalashooyinka dalal kale. sidoo kale Abukaati Sikri Yusuf oo ah qabiir xagga sharciga ah ayaa qaba in laga joogo xilligii xeer laga soo saari lahaa in dadka haysta labada dhalasho aysan qaban karin jagooyin muhiim ku ah maadaama uu madaxweynuhu go'aankaasi qaatay geesinimada leh oo muujiyay wadaniyadiisii muujiyay dadnimadii dal jaceylkiisa. waxaan aniga fikir lahaa in xeer iyo nidaam laga soo saaro oo waliba uu isaga madaxweynaha u horeeyo ayuu intaasi ku daray. sidaas oo ay tahay dastuurka kumeel gaarka ee Soomaaliya wuxuu ogolaanayaa in dadka xilka qabanaya ay haystaan laba jinsiyadood sida ku qoran baarlamaanka. intaas waxaan kusoo gabay doonaa madaxweynihii oo go'aan ku gaaray in uu iska casilo ama uu iska dhiibo baasaboorka Mareykanka. fadlan haddii aad daawanayso Ogsano TV fadlan subscribe, like, share and comment intabana la wadaag. saabteen waxaan leenahay I love you.